adduunka waxaa saameeyey cudur safmareen ah oo la yidhaahdo COVID-19 cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go'aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay bandow in la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka Banaadir oo lagu soo buuxiyey jeermis dilayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay way soconaysaa habeenadan insha Allah taala inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka Banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka COVID-19 ayuu socod doonaa dadaalka qaybaha kala gedisan leh ee isugu jira buufinta magaalada la buufinayo wacyigelinta bulshada